iyadoo magaalada Laascaanood ay soo gaadheen maalinimadii shalay majaajilistayaasha Soorani Jawaan ayaa waxay qabteen bandhig faneed ay ku sheegeen inay kaga wacyigelinayaan dhanka waxbarashada iyo caafimaadka bulshada ku dhaqan gobolka Sool. bandhig faneedkan ay qabteen majaajilistayaashan ayaa waxaa si weyn looga hadalhayay magaalada Laascaanood iyadoo ay ka soo horjeesteen culimada gobolka Sool ee ku dhaqan magaalada Laascaanood. culamadan oo qaarkood ay yimaadeen goobtii bandhigan uu ka socday isla markaana isku dayeen inay joojiyaan balse aanay u suuroobin inay joojiyaan bandhig faneedkan. dhinaca kale waxay ahayd goor aan fogeen markii ay joojiyeen culimadu bandhig faneed noocan oo kale oo ay soo abaabuleen qaar ka mid ah abwaanada iyo dhalinyarada ku dhaqan magaalada Laascaanood iyagoo doonayay inay ku qabtaan halkaasi bandhig faneed ballaadhan oo ay ku madadaalinayaan bulshada gobolka. haddaba dhalinyaradaasi ayaa maanta mar ay la hadleen TV-ga caalamiga Somali News waxa ay sheegeen inay ka xun yihiin in bandhigoodii la joojiyo. anoo ku hadlaya afka dhalinyarta gobolka Sool iyo afka hal abuurada iyo jilayaasha waxa aanu dhaleecaynaa wadaadada gobolka Sool waayo sababtoo ah waxay hor istaageen oo caburiyeen riwaayado wacyigelin ah oo gobolka bulshada aan ugu talagalay. maantana ma doonano nin gobolka ka yimid oo warqad kala sita inuu gobolkayga yimaado annaga tan ka Soorani Jawaan waan leenahay maxamed siyaab barre baaliman abwaana oo wax jilaya u yimi wuxuu ku yiri maxaad meesha ku haysaan lacag baad iska cuntaan 24 saac maxay tahay lacag baad cunaysaan nin abwaana u kacay wuxuu yiri dhalinyartan haruunina haasaawina dinta u hagnaa horta fanku waa ka qiimaha leh annagu ah kooxda rugsan oo ah dhalinyartii Laascaanood oo hadii ay jilitaan noqoto iyo hadii ay riwaayad noqotoba ah hoygii maxay ay tahay abwaanadu heede ayaa maanta dad maxay ay tahay shakhsiyaada oo ka yimid goboladan deriskeena ah ee Hargeysa Burco ba maxay ay tahay waxaan ku qabanaynaa barnaamijyo iyo riwaayado iyo dhiirigelin aan shacabka ku tusayno wax qabadka ay qabteen maxay anagu jilayaal baanu leenahay dhalinyar baanu nahay waxaanu nahay kooxda rugsan waxaanu nahay koox ka hadlaysay maalintii dhaweeytay iida baanu riwaayad maxay ay tahay soo qoranay riwaayada magaceedu waxay ahayd qaran dumay qabiil baa u sababa eegada qiimaha ay leedahay qaran dumay qabiil baa u sababa waxaan anagoo dhalinyaro intaan isku tagno kooxdiya baanu maalimi waxaanu dabcan inaan barnaamij ku qabano dad wadaad aba noo yimi waxay nagu dhaheen riwaayadaas wax dhacaysa ma aha hadii riwaayadayadii qaran dumay qabiil baa u sababa qabyaalada ka hadlaysay hadii aan maxay noo qabsoomi wada culimada xaqooda ka qabsoomi weeyday laakiin sadad jilayaal oo Burco Hargeysa ka yimi annaga maxay ahaaytay annaga agteeda waxba ka qaban maayaan maslaxadaheeda fuuli maayaan dadka ay dhiirigelin maayaan hadda ma garatay annagu waxaan leenahay heer Laascaanood idinka jilayaala idinka maxay ahaaytay agtarra ah idinka maxay ahaaytay abwaana runtii annagu ka niyadtaymeen inaan wax jilno xilli walba ha nagu qaadato Laascaanood gudaheeda hadaan u dhalanay waan ku jilaynaa wax hadii kale lacag baa naga baxsan hadda iidi dhaweeyada la soo dhaafay waxay damceen dhalinyarta gobolka Sool lagu magacaabo kooxda rugsan inay sameystaan bandhig ugu dambeyntii magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ah goob caan ku ah diinta iyo culimada iyadoo sanad waliba ay soo booqdaan culimada waaweyn ee Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Sheekh Maxamed Cabdi Wamal, Sheekh Mustafa Ismaaciil Xaaji Haruun, Sheekh Maxamed Idris iyo culimo kale waaweyn oo Soomaaliyeed. Mawlid Ismaaciil Haradigeed, Somali News TV, Laascaanood.